xisbiga Liberaalka ayaa ku guuleystay doorashada dalkan Kanada taasoo hogaamiyahooda Mark Carney ka dhigtay ra'iisul wasaarihii 24aad ee Kanada. Mark Carney ayay dad badan rumaysan yihiin inuu wax ka qaban doono dhibaatada dhanka dhaqaale iyo canshuuraha madaxweynaha Mareykanka uu ku soo rogay Kanada iyagoo ka duulaya aqoontiisa dhanka dhaqaalaha. Xisbiga Liberaalka ayaa helay 164 kursi oo kamid ah guud ahaan kuraasta baarlamaanka oo ka kooban 343 kursi. Xisbiga Conservative-ka uu hogaaminayo Bolivier ayaa mar kale xajistay isla booskii xisbiga mucaaradka rasmiga ah iyagoo helay 148 xildhibaan, halka xisbiga NDP oo ku jiray kaalinta saddexaad hadda loo tuuray afaraad kadib markii xisbiga Bloc Quebec oo ka dhisan gobolka Quebec uu helay 23 kursi, sidaasna uu ku noqday xisbiga saddexaad ee Kanada. Xisbiga NDP oo helay wax ka yar 10 kursi waxaa ku dhacday taariikh aad u foolxun kadib markii xitaa hogaamiyahoodii Jagmeet Singh uu ku soo bixi waayay isla kursiga uu u tartamayay ee xaafadda Burnaby ee gobolka British Columbia isagoo ahaa xildhibaan iyo hogaamiyaha xisbiga tan iyo sanadkii 2017. Xisbiga NDP ayaa hadda galay kaalinta afraad. Soomaalida ayaa xisbiga Liberaalka ee guuleystay u arka mid soo dhaweynaya dadka soo galootiga ah isla markaana u roon dadka dhaqaalahooda hooseeyo iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay. Dhanka murashaxiinta Soomaalida, Axmed Xuseen ayaa markii afraad ku guuleystay xildhibaannimada xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Western ee magaalada Toronto isagoo helay codad ka badan 10,000. Axmed ayaa ku dhawaad 10 sano ahaa wasiir soo qabtay wasaarado kala duwan. Dhanka kale, Sayid Axmed oo dadaal badan muujiyay ayaa galay kaalinta labaad waxaana xaafadda Edmonton Center ee gobolka Alberta ku guuleystay Eleanor oo ka tirsan xisbiga Liberaalka horeyna xildhibaan uga ahaa xaafaddaasi. Si kastaba, xisbiga Liberaalka iyo ra'iisul wasaare Mark Carney ayaa u baahnaan doona taageerada Bloc Quebec iyo NDP si ay ugu suura gasho meelmarinta qorshayaashooda, maadaama ay ku soo baxeen dowlad aanan haysan baarlamaan aqlabiyada ama ka yar 172 kursi oo ay si aqlabiyada ku hogaamin lahaayeen dalka haddii ay heli lahaayeen. Sidoo kale waxaa horyaala wax ka qabashada dhibaatooyinka dhanka dhaqaalaha ee ay ka cabanayaan dadka Kanadiyaanka ah. Fadlan mar walba nagu xirnow si aad wax badan uga ogaato arrimaha la xiriira Soomaalida Kanada iyo guud ahaan dalkan Kanada. Intaan mar kale kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.